gaarigan dee waa kuwii filimada uun ku arki jiray ya wala saabsa waa adiga iyo xaaskaaga aniga iyo xaaska iyo marka isii tuuriyo xaasima jiraan isaaqo ma jiraan meel kale qof raaxo qof meel kale raaxo ma laha Abdisalaam baabuurkan waa baabuur aad qaali uga haya taariikhdiisa hadaan kaaga sheekeeyo baabuurkan waxaa wadi jiray asoo yellow cab ah waa baabuurkii ugu horreeyay Mareykanka iibsaday de Mareykankuna ay caan ku ahaayeen waa u sheegay naagta qaba waxaa yiri haddaad eri tagto waxa dhan qaada tagto kanuna iga tag kana iga reebanaya marka goormaad ka haysataa kan waxaan ka haystaa when I want to really be cool marka aan faraxsanahay oo ama aan game aadahayo sarwaal daba gaab wato oo aan aad u faraxsanahay wato markaan ka qasnayn markaan iga qasnayn maanta waxaan ku sugannahay magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana ee ku yaala bartamaha dalka Mareykanka dhinaca galbeedna xiga booqashadayada aan ku nimid gobolkan Indiana iyo magaalada madaxdiisa Indianapolis waxaanu ka bilaabaynaa kambaniga ugu weyn ee Soomaalidu gobolkan ay ku leeyihiin waa Royal Transportation waxa uu ka shaqeeyaa kambanigeeni dhinaca gaadiid fara badan buu leeyahay muddaha tan laga joogo 17 sanadood ka hor ayaa kambanigan waxa aasaasay Isaaq Cawaale Isaaq waxa daba uu iga warramaya sidii fikradani markii hore ay ugu dhalatay iyo sida uu ku soo gaaray heerka uu maanta marayo iyo dhibaatooyinkii uu kala kulmay markii ganacsigan uu sameynayay iyo heerku maanta marayaba Isaaq aad iyo aad baan walaal ku salaamaya horta waa ku hambalyeynaya marka hore waa maasantahay indhaha iyagu waxay arkaan wax badan oo wanaagsan waa aad meel fiican aan joognaa hadda halkaad ka soo bilowday laakiin waxaan ka bilaabay anigu waddankan markaan imiday waa yaraa waxaana la imiday xaas iyo canug Yurubaan ka imid taxi driver aan ku bilaabay magaalada la yiraahdo Seattle Washington magaaladii Seattle qaali ugu noqotay ilmihii baa 4 noqday waa ku kori waayay waa ka soo guuro meeshaan aan isir waa raqiisaan imiday markaan imiday ayaan go'aan waxaan ku gaaray inaan car service wax la yiraahdo sameeyo car service maxaad uga jeedaa marka car service waxaan uga jeedaa baabuur madow oo gudihiisa iyo asugu ay madow yihiin oo nadiif ah oo luxury ayaad iibsanaysaa ka bacdi waxaad sameynaysaa waa advertisement aad isku sameynaysaa si aad u hesho dadka airport ku socdo dadka xafladaha u socdo dadka maaragtay oo xoolo haysto oo aan rabin inay drive gareeyaan marka waa sidii limousine oo kale gawaarida raaxada gawaarida raaxada way saasaan ku bilaabay dib badan aan kala kulmay bilawgiisii magaaladan markaan imiday aan baabuurkii gatay magaaladan aaday hoteelada iyo waxa meelaha dadka laga helaan aan isku dayay inaan wax ka helo waxay ugu qaadatay in aan wax helo 3 bilood ayaan downtown ka dhex taagnaa 3 bilood oo igu horeysay $7 shaqeey $7 oo kaliya $7 oo kaliya way de meel laga bilaabaad garan weyday miya meesha laga bilaabo waa qiinay businessku waa business competition oo la isku area nimanka hore u sameynayay waxay isku dayayaan inay ku diidaan oo ay ka bixiyaan suuqa laga saaro waxa lagu dirayaa hoteelada waxa lagu dirayaa dadka kale xataa waxa la leeyahay waa nin madoob oo Afrikaan af ma yaqaano oo maaragtay hawtigina marka niman cadaan ah badan business ka haystay xusl ay dhigan xusl hay maanta deeg gawaari fara badan baan halkan ku arkaa halka kale oo aynu tagi doonana qaar fara badan oo kale yaala waa wada Royal Transportation imse gaari baad leedahay maanta I have 86 vehicles 68 baabuur marka kuwan ma basasba kuwan shuttle bus waaye waxa loogu talagalay dadkii 30 ka yar oo aan meel aad u fog u socon inay qaadaan badanaa waxay ka shaqeeyaan xafladaha iyo aroosyada iyo adiga zuuga iyo hadaan ilaahay ku diidin waxyaabaha maalin adiga dhowr boqol oo qof dad haysto ay u shaqeeyaan dalabayna ku baxaan noocyo kala jiro dabcan aynu arki doono Soomaa noocyo kala jiro businessku wuxuu u kala go'an yahay afar meelood uu kala go'an yahay business one nimankan madmadooba waxay sameeyaan shuttle-ka local-ka ay sameeyaan business kale waxaa jira la yiraahdo charter oo aan out of state oo state kala aado gobolada kale aado Washington DC Atlanta Georgia
St. Louis, in Illinois, Ohio, all of those places. waatay kuwaas waa basas waaweyn oo aadaan ilaahay ku diidin oo federal governmentigu ay regulate gareeyaan DOT oo dad badan noloshood yani halkii xabo wuxuu qaadaa 56 qofood kuwa ayaga waa shaqo weyn waaye dalab ay ku baxaan ayaga qudhoodu badanaan waxaan qaadnaa sport teamka oo iskoolada university la ciyaaraysa waxaan qaadnaa marka field trip when school markuu rabo inuu aado Washington DC waxa kale oo qaadnaa big corporate shuttle markuu yahayna way ka shaqeeyaan so kuwaasuna waa nooca kuwa kale waxa jira la yiraahdo VIP oo kuwan ku bilaaba oo SUV iyo sedan right kuwaas waxay qaadaan business travelers iyo celebrity people ka oo dadka caanka oo siyaasiyiinta ay ka mid yihiin kuwaas qaadaan way kuwa kale waxa jira oo ka shaqeeya only airline tale u shaqeeyo oo waxay qaadaan pilotyada iyo flight attendants halkay qaadaan oo airline tan ayagana kontraada la haysanaa oo shaqo badan oo ilaa iyo 20 iyo dhowr baabuur oo 20 iyo dhowr driver leh badana Soomaalidu ay wadaan inta badan kuwaasuna way jiraan marka afarta nooc oo kala baxaa business marka isaaqo halkan waxa weeye xarunta Royal Transportation geerishkii baa ku yaala waxa ku yaala xafiisyadii bal hadda qaybaha kale ma soo eegi karayna absolutely meeshan waa 14 acre oo ay ilaa iyo 12 ka mid ah ay yihiin asphalt oo hard ay yihiin so I can show you gurigaas waa dhulkii aan ugu nimid meesha markaan gadanaynay waxa degan dad meesha ka shaqeeya degan oo naagta actually HR tayna degan ijaar bay bixisaa waa naag Mareykan oo cadaan ah iyo familkeeda degan laakiin Royal baa iska loo marka intii company-ga aad samaysay inta badan xaruntu halkan ay ahayd miya maya meeshaan waxaan joognay 6 sano la soo dhaafay dhibaatooyin badan iyo meelayaab kala badan iyo meel baabuurta la jijibinayo habeenkii haddaad ka hoyato subax ayagoo muraayadu ka wada jijabayeen aad u imaanaysa dib aad u fara badan baan ka soo marnay laakiin alxamdulillah laakiin dibta hadda waa laga baxay Soomaa waa laga baxay marka ma loo dhakaa isaaqo halkan waa Soomaaliya yar oo ku dhex taala Indiana meeshaan hadda calankii Soomaaliya halka iga muuqda marka meeshaan haddaan kaaga sheekeeyo waa dhul aad u weyn oo Ilaahay mahadiis aan anigu iska leeyahay iyo company-gan Soomaali badanna waa ka ceeshtaa haddaad timaadana meel ammaan weeye isaaqo marka shaqaaluhu Royal Transportation waa imsa qof imka waa ilaa 53 qof Soomaali imsa Soomaali adigu 20 laakiin qaar hore ku shaqeyn jiray ma jiraan iyagu Soomaali badan oo shaqeey jirto ka tagtay oo qaar ay hadda yihiin truck drivers qaar soo noqday oo baxay intaba way jiraan marka gawaarida ku yaryar ay sheegaysay madaxda qaada waa kan oo kala miya no kuwan darawlinta iska leh darawlinta this is a driver's parking spot kuwa madaxda qaada baabuurka adiga lagu soo qaada kamida iyo kuwa xagga safan soo baabuurta oo businesska iyo kuwa personalka isma dhaxgelin guriga waxa iska leh company-ga iska leh dhulka markii la gadahayo la yimid waxa degan ilaa iyo 6 qofood oo Soomaaliya degan oo ayagu inta ka shaqeeya oo arkaysa calanka Soomaalida u suray hadaan ilaahay ku diidin si ay ugu raaxaystaan oo ay uga warhayaan isaaqo suuqan marka transportation-ka ama gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee halkan aad ku hayso sidee buu yahay imka businessku hadda xilliyo badan oo soo maray laakiin haddeertan aad buu fiican yahay anigu hadda saan ku sheegayay meelo badan soo maray laakiin hadda waqtiga la joogo waxaan ka mid noqday company-yaasha waaweyn oo caanka oo laga ixtiraamo state-kan waxaan ahay company-ga saddexaad oo ugu weyn ana gurigaan aad arkaysaa waxa waaye headquarter-ka oo company-ga Indiana State iyo company-ga flaggiisa iyo calanka Mareykanka ka taagan marka waa saddexdii calankii wadanka iyo kii gobolkan Indiana iyo kii company-ga halka drive-ga waxa loo sameeyay shidaal lagu qaato oo shidaalka laga qaataa meeshaas diesel iyo gas buu leeyahay lacag badan gas markaad leedahay waxaad uga jeedaa petrolka lacag badan nooga bixi jirtay hadda waxa waaye darawlintu waxay leeyihiin ayaga code bay leeyihiin qof qaadan kara oo code-ka lahayn lama arko computer-kana waanu ka aragnaa xataa telefonkeygan ka arkaa haddii qofku shidaal qaadanayo halka camera ku xiran duubaysa nalkaas habeenkii waa daarmaya
stateku wuxuu regular gareeyay oo maaragtay aan anagu meesha ka dhignay badan loo soo maray oo stateku iyo fire department and everything ay ogolaadeen way marka taxigii farada badnaayo bixin jirnay markaas stationada hadda ma bixino marka isaaqow intaad shidaal iska soo qaadato oo haan samaysato meesha ma dhigi kartid waa in qoladan dabdamiskiya eegaan hal sano iyo bar ay ugu qaadatay inaan helo permitiga waxaan hire gareeyay ilaa iyo 45,000 dollar dadkii barbeer gareeyay in meesha laga dhiso bahalkan 50,000 dollar ay ga baxday wax ka dhib badan ma jiraan marka hadda waa regulated way og yihiin haddaad inta fiiriso hadda halkan haddaad fiiriso waad arkaysaa halkaas bahalkii lagu daminayay ku xireen bahalkii lagu daminayay halkaas ku xireen electrigaas ayadoo qaas u yahay haddii wax yar ay ka dhacaan electriga dhan wuu isdaminayaa marka is a very safe this is emergency shut off it's a very dangerous product so Soomaaliya dawad aragtay xaafadaha gudahooda la iska haystaa arag bahaladaasi ku xireen oo yelowga ah haddaad 100 mayl baska soo wado aad ku dhacdo basku baa jajabay haanta tigmist haanta qudheedu waa 4 haamood oo isku dhex jirta haddii mid u dilaacdo midda kale ayay ku daadanayaan gaasku inay banaanka u soo baxaan loogu talagalay aad baa looga taxadiray baalka computerkaas inaad code-kaada geliso oo vehicle number geliso oo mileage-ka geliso oo magacaada aad geliso mooy wax shidaal oo kaaga soo baxayana ma jiraan meeshan markaan iibsanay guri bay aad caadi oo family degan yahay shaqo badan aan gelinay ilaa 100,000 dollar aan gelinay wax walba aan bedelnay darbiyadii baan isku furnay meel weyn oo banaan aan ka dhignay remodel aan ku sameynay magaaladan ka soo qaadanay fasax xataa waxay nagu qasbeen in albaabada aan jibino oo aan ka dhigno albaab wheelchair oo soo gali karo oo business friendly ah dadkan aan socon kareynin bahla gawaarida lagu leeyahay albaabkii hore oo caadiga ah oo dadkii familka ay lahaayeen way diideen marka wax walba sidii loogu talaan ka dhignay markaan ka dhignayna waxay noo ogolaadeen fasax waxayna siinayna xafiis ka dhigi karno halkan waxa iga muuqda sawirkii madaxweyne Biden iyo adiga madaxweyne Biden is customer-kaygu ahaa hal sano intaan la dooran ka hor waa markii ololaha uu ku jiray miyaa markii ololaha uu galahayay ahayd intuuna aan screen runtii call baan helay oo leeyahay nin madax oo saraad qaadaysa nimankan la yiraahdo secret service-ka ay soo wacay waxay qaateen ID-gayga oo ay background-gayga jagareeyeen inaan criminal record leeyahay ka bacdina waxay ogolaadeen inaan qaado of course lacag ay siiyeen aan ku qaado waxaan opportunity u yeeshay mar oo picture la galay dadka asiga ay yeeray runtii oo yiri hey ninka waa qana ka mid so nin aad wanaagsan isaaqo markaad qaadayso markaa madaxweynaha mustaqbalka oo kale oo ololaha ugu jiray darawallo gaar ah loo asteeyamiya yes qofku waa inuu clean record u leeyahay hadda ka hor waxaan qaaday madaxweynaha Mexico wiilkiisa baa la soo wacay wiil yar oo dhalay oo summer camp aaday darawalkii markaan u diro meeshii tagay waxay ogaadeen inuu hadda ka hor dambi galay way soo waceen waxay yiraahdeen darawal kale ma soo diraysaa ninkaan wiilkan qaadi maayo waxay noqotay inaan anagu baxo aan wiilkii qaado aan meesha u socday geeyo nin wanaagsan oo ahaa marka laakiin waxay ogaadeen inuu xilli hore wax qalad sameeyay halkan waxa iga muuqda vice president Yeah, the vice president also is actually a good friend of mine. I knew him markuu governorka ka ahaa jiray gobolka Indiana naqaanay. Aniga soo waa madaxweyne ku-xigeenkii hore weeyay. dhowr maran shaqo u qabtay hadda meeshaas waa maran meel xaflad isla joognay oo aan isku aragnay oo aan is salaanay xafiisyada hadaan ku kala tuso ana xafiiskan waa xafiiskayga badanaa ma fariisto aniga gabgableeya la yiraa gadaalan ordaa haddaad aragto dadka celebrity ah oo aan qaaday ay ka mid yihiin Richard Branson kan America Virgin iska leh Michael J. Fox is out there this guy is Andretti that's my family my 4 kids and my wife and I mashallah that's in Hollywood California vacation calanka Soomaalidu waa ka halka ii suran oo waxaad arkaysaa inuu xafiis Soomaaliyeed uu yahay oo nin Soomaali u degan yahay ayagoo trakli ahna waa kuwana inta igu jiraan hadii loo baahdo mid markuu dhamaado waa geliyaa
de qori baan arkaa ka dambeeya calanka Waya, Royal Transportation ay ku qorantay Oregon Royal Transportation ku qoran tahay was a gift waxa waaye hadiyad oo nin aan maaragtay insurance garay jiray company-gan oo agency oo noo sameeyay oo magaca ku soo qoray qoryaha aan leeyahay kamid waaye maadaama uu sugu yahay Royal Transportation ayuu yaalaa inta qoryo kale hadda meeshan Mareykanka nin walba qoryo leeyahay ha kuwa baaburkay noogu jiraan kuwa guriga yaalaan Daniel ku dii marka qofka hadduu qorigu u sharciyeysay ama baastooladu inta doontaabad yeelan kartaa anigu waxaan leeyahay a lifetime carrier permit aha so I can waxaan haysan karaa qorigayga jeebka ugu jiri karaa kuwa automatic u dhaco like oo ay kamid yihiin AK47 guriga lagu haystaa haddii carradu isku waalato laakiin de sharciyada goboladu waxaan ka warhayaa inay kala duwan yihiin Indiana kale qofku intuu doonaabuu yeelan karaa nooc doonaabuu haysan karaa Indiana waxa waaye open carrier waaye waliba bastooladaada iyo qoragaada waa tusi kartaa hataa laakiin Illinois oo nagu dhow oo Chicago ay kamid tahay qoray hadii lagu arko lagu xiraa so gobol walba siisa waa Illinois waxa la ogol yahay qoriga anigu hadda waa la tigi karaa laakiin waa inuu kala furan yahay oo aysan qasnadu ku jirin qoriguna oo traanka baabuurka meeladan ka soo qabsan karin oo yaalo marka qofku hadduu qorigu u dhow yahay waxa laga yaabaa inuu isticmaalo sax laakiin haddii uu inuu doono ay noqoto inuu ka fikiraa laga yaabaa qaladka intuu waxyaabo badan ay fiiriyaan ma sha Allah marka ofiskaagu waa kan ofiskaygu waa kana badanaa anu meelahan ordaa laakiin meeshan aan imaada markaan rabo inaan wax ogaado inta waxa waaye waxa la yiraahdaa xafiiskan account receivable lacagta dhan on helno waa qaybta xisaabaadka qaybta soo aruurisa way dadka maanta hadii wax lagu jaagareeyo qoftan gabadha Faaduma la yiraahdo waxay soo aruurisaa ilaa iyo wax allaala wixii company-gan oo helo qiyaastii marmarka qaar waxay aruurisaa lacag $500,000 ma sha Allah wiki aman bishi so shaqo badan ay qabataa marka ayada la'aanteed waxaan haysanaa lama arko so ayada wax walba soo aruurisa inta waxa waaye xafiiska oo laga dispatch gareeyo gawaarida laga kala diro wax walba meeshaan ay ka bilowdaan kuna dhamaadaan marka intee ila horba la soo dalban karaa gaari ilaa ay xilliga doonto hadaad maanta dalbato 2 sano hadda ka bacdiyo wax macna ma leh ama hadaad 2 saac dalbataan wax macna isku mid waa 2 sano kadib baad buukaysa waysa 2 sano hadda ka bacdiyo aad buukaysa hadda buukna badan oo haysano waa 2025 2024 so marka qofku hadduu xilligiisa iyo saacadiisa iyo waqtigiisa iyo adresska laga qaadayo waxaas noo sheego waxaan ku require gareynaa inuu 30% lacagta bixiyo sii qadimo boqolkiiba 70 oo bixiyo 48 saacadood ka hor inta shaqada la qaban hadii kale computerka qudhiisaaba kansalaya oo ma jiro oo aniga sheekha waxba laga hayo dadkuna way arkayaan hadii uu yahay shaqo weyn badana waxaan sameeynaa waxaan ilaahay waqtiga waa dhow yahay lacagta inta dhiman bixi si aan shaqada kugu qaban hadii waxaan macna leen uu yahay ayaga dhibeysaa maaragta daan ilaahay ku diidan waa waqtiga loo call wasiina hadii kale ayaga soo waxtamo ma sha Allah Renee and Lindsay, they do the dispatch. Lindsay actually is the head of dispatch, and she dispatch all the drivers and all the vehicles. And Hafizkan, Wahawai, and Hafizkeda, Anne and I, Hello, Anne. Hi, how are you doing? No problem at all. How are you today? It's nice to meet you. Oh, very nice to meet you. waxay qabataa HR dadka la hire la qoraayo waa shaqaalaha waa qaybta shaqaalaha also she's a controller waxay ogaataa lacagteeda oo dhamay xisaabisaa meesha ku baxday dadka lacagta laga qabay lacagta siisaa bankiga balance garaysaa so she's also my bookkeeper and also my secretary. She watch my emails and answer my emails. Also, she communicate with my legal advice and lawyers and all that stuff. iyada markaa qaabilsan waxa soo dhaw wixii maamula iyada qaabilsan I work with her very close. intaynaan gudaha gelin de baskani waa ka duwan yahay kuwa aanu soo aragnay waa basaska waaweyn aad lahayd gobolada u kala baxaan miya basaskan charter la yiraahdo basas waaweyn waa basas aad
lacag badanna shaqeeya qiimo badanna ku fadhiyo waay maxaad uga jeedaa qiimo badan ku fadhiyo qiimo badan basaskan ka ugu yara $300,000 $300,000 ya qaar $500,000 hadda weegan ama weega dambe laba imaanaysa ha labadaa bas waxay joogaan $972,000 waa laba bas oo kaliya laba bas oo kaliya haya $970,000 maxay special ku yihiin markaa waxay special ku yihiin first of all lacag bay sameeyaan ha qofka sameeyay waa ogyahay inaad lacag ka samaynayso haya basaskan $300,000 ay maalinkii shaqeeyaan haddii shaqo helaan so waxaa laga yaabaa basku inuu $100,000 ka badan shaqeeyo bishii haddii uu shaqo helo ha adigay kugu xiran tahay marka inaad baska shaqo u hesho lacagtaad ka bixisay shaqo u noqomayso waa runaa midday horeetan hadda ku sheegayo ku dhahay sumcadda la ilaaliyaa waxay muhiim in tahay maadaama aad investmentiga samaysay haddana waa inaad shaqadii heshaa shaqadii helitaankooduna wuxuu ku xiran yahay saa shaqada u qabato so if I wixii way isku xidhay waa isku xidhay otherwise if I tell you the secret for success is hard work طبعا waxa weeye waa in aad loo shaqeeyo in aad loo shaqeeyo haddaan ilaahay ku diidin na aadan noqon nin ka fikira $100,000 oo ka hor muuqata markaas oo aad mustaqbal ka fikirtid mustaqbalku wuxuu ku xiran yahay waxna waa la dhisaa waa la sameeyaa marka dhismadu waxa waaye inaad dadkii macaamiishii wanaajisid inaad baabuurtii samaysid inuu airconditionkiisu fiican yahay inuu baabuurka taayiradu fiican yihiin inaad lacag geliso kabacdi haddana dadkii ay hab yihiin oo maaragtay xataa waxaan sameynaa dadka markaan qaadno hadda maalin hore shaqaan qabanay 3-4 iimaloodaan ka daba dirnaa shaqadaan idin qabanaysa ay heeday ma ku faraxsaneedeen ma waxa jira waxaan marka labaad oo idin aragnay inaan bedelna aad u baahantiin so we have also customer relationship wax la yiraahdo kanina waa ka yar yahay dabcan ka banaanka aynu ku soo aragnay kan magaalada uu ka shaqeeyaa wuxuu ka shaqeeyaa actually waxa waaye basaska oo metroga la yiraahdo oo dawladdu u shaqeeyo dhowr bas oo ayaga kamida hadda aragkan waxa ku qoran Plainfield connector this bus is dawladda Mareykanka waxay bixisaa wax la yiraahdo dadka aan lacagta haysan oo ama aan baabuurta lahayn si ay shaqada ku tagaan marka xaafadaan tagnaa raawdaan leenahay dadkaan qaadnaa shaqooyinka u socdaan iyo warehouse-yadan geynaa lacagtana dawladdan saas hadhowna idinka ka soo celinay marka soo ruuxaan waxaan leenahay waxaan bilawnaa 5 am in the morning bilawnaa ilaa iyo waxaan sameynaa 7 pm so xilliga ayada waxaan leenahay stoobiye qaas oo ay basaskaanu leeyihiin dadku meeshaas ay nagu sugaan $1 lagu raacaa $1 marka lacagtan kula heshiinay dawladda doolarada aan aruurinaan ka jarnaa waxay noogu dhiman ayagan ka qaadanaa dawladdan ka qaadanaa isaaqo marka halkani waa geerashkii weeye gawaarida lagu dayactiray halkan geerashkii waaye waa building aad u qiimo badan sanadkaanaan dhisnay oo awal maydin lahayn awal maynaan lahayn oo dhibaato xoog lahaan haysatay waxaan samayn jirnay basaska qaar intaan halka ka baxnaan Chicago aan ka soo samayn jirnay hadda wax walba halkaan ku sameynaa Chicago intay idin jirtaa marka Chicago waxay noo jirtaa 4 saacadood drive 4 saacadood haddana dhibaatada jirtaa waxay tahay Chicago aan tagnay waxa laga yaabaa inaan saf galno oo 3 week uusan makaanigu uusan waqti u hayn baskeyga hadda after almost $1 million investment in ku sameeyay halkan laakiin baskeygu hadduu jabo soo socdo intuu soo gala waana private oo wax kale oo aan royal ahayn oo halka laga sameyn karaa ma jiraan hatta naagta qaba baabuurkeeda halka laga sameyn karo okay wixii kale waa inay banaanka lagu soo sameeyo wixii kale in banaanka lagu soo sameeyo waa building aad u qiimo badan waa almost 4000 square feet xafiiskiisu leeyahay record buu leeyahay baabuurta computer row leeyahay baabuurta lagu fiiriyo niman aad makaanigiin oo aad wanaagsan way joogaan wax walba halka lagu sameeyaa markii waxa waaye badan oolyadu waa taas halkaas looga shubaa oolyada taas oolyo kale nooc kale taa waaye oo waa lagu babgareeyaa kambaniyada soo deliver gareeyaa jira so it's very good isaaqow qaybo kale inoo dhiman baan u malaynayaa miya qaybta kale waynu soo arki doonaa waxaan jeclahay inta qaybta kale aanu ku sii soconno inaan ku weydiiyo Soomaaliya aad xageed ku kortay anuu baadiyaan ku dhashay way tuula ceelgaal la yiraahdo oo u jirta ceelgaal waa la yaqaanaa 12 kilomitir camal jeenta kundusha u jirtaan ku dhashay dhinaca waqooyiga waxaan ahaa ciyaalkii ayagoo yaryar dagaalkii 77 markii laga soo laabtay oo askarihii soo agdegay askarta ka luluftaan ahaa kabacdina waxaan ka bartay askartii baan la shaqeeyay sida baabuur loo wadaan ka bartay
adigu xoogaa yaroo lacag 2 saacaad oo lahayn aabbahay ay gaday markab yaara la yiraahdaan ka raacay Sacuudi Carabiga ku aaday anoo 12 sano jir actually oo Sacuudiga waad soo martay 16 Sacuudi meel badan aan soo maray waatay Yurubna waxaad ii sheegtay dabcan inaad soo martay ka hor intii aanad halka soo gelin taariikhda aan soo maray waa taariikh aad u dheer haya waad soo kifaaxday soo kifaaxay adigu Sacuudiga 12 anoo jiraan imiday kabacdi dagaalkii khaliijkan wax ka galay oo aan hadaan ilaahay ku diidin anigoo aad u yar aan taangiyada Mareykanka ka qaadi jiray damaam meel yaraan qeey jiray carcar iyo goroyaad iyo xafrabaadi oo aan wadi jiro magac kale oo Yemeni wata kabacdi hadana waa ka soo tagay Ethiopia imiday waa ka tagay waxaan tagay India oo India maxaad ka doontay markaa India Yurub baan rabay inaan aado way India tagay waa iga jajabtay dhibaatooyin badan aan ka kulmay 6 bilood aan joogay waxaan saaxad jiray masaajid habeenkii 6 bilood aan masaajid saaxad jiray oo aan ku heshiinay ninka sheekha inaan habeenkii musqulaha dhaqo masaajidkan inaan saaxdo oo yaqoolaado markii dambe adiga ilaahay amarkiis waxbaan helay lacag $100 aan helay waa ka tagay meel kale tikidii go'ayso ma lahayn magaalada Iran Uzbekistan oo Afghanistan diriskeeda haya tagay meeshaas oo wadankii kamid ahaan jiray midowgii Soviyeeti hore kabacdi waa ka tagay adigu meesha waa ka tagay Moscow hadana tareen ku tagay dagaalkii waxa ku dhacay naynigii Uzbekistan iyo Qazakhstan iyo madaafiicdaasaan hogaami jiray tareen dhawo saarnaa dhinacu ka goostaata waad isaaqo markaa de meel fara badan oo adduunyada baad soo martay wadankan Mareykanku muxuu kaga duwayay Yurubtaad soo martay iyo Carabi iyo Hindiya iyo Uzbekistan maxaa u gaara ee uu leeyahay yaa Cabdisalaam midaan ku sheegayaan dadka Soomaalidu waa dad aad u wanaagsan adag shaqo badan opportunity u baahan fursado inay helaan u baahan haddaan uu reebaadiyana may wada haan jirtay miswaatay wali way anoo waliba 30 sano iyo dhowr sano moogaa wadankii aan wali reebaadiyaa reebaadinimadu caab ma reebaadinimadu عيب معها نكان عقل لهين هي عيب هايستا هاي سقول وحن كو غاري جلاس كل حد اون تولدان كدا شيء سقول يرو ابه iyo odayaashu ay dhiseen macallin dawladdu noo keentaan ilaa inta dhigtay ka bacdina waxaan noqday adigu 8meedii dhaxdeedii 84 krishboy baan baawar askareed ka noqday asiga wax ku bartay xogaa lacagan krishboynimada ku aruursaday aabahayna waxba igu daray oo dhowr saacaad oo leeyahay iga sidaas ku soo baxay intaana waxaan soo maray ilaa iyo 15 dawladoodna waxaan soo maray inaan maaragtay hadaan ilaahay ku diidin aan wax raadsado oo aan maaragtay aan nolol sameeyo I learned one hal xabaan ka fahmay adduunyo intaan anigu maraayo maskax iyo caqli iyo inaad shaqaysato haddaad diyaar u tahay wax walba waa helaysa su-aashaydii haddaan kuugu celiyo isaaqo Mareykanku muxuu kaga duwan yahay dee wadamada kale faraha badan leh aad soo martay Mareykanku wuxuu uga duwan yahay opportunity fursada yaala fursadu nin walba waa u furan tahay nin walba waa u furan tahay ninna waa qaataa fursadda waa ka faa'iideystaa ninna ilaahayba kuma soo duwin oo uma jeedo ninna maba laba awoodii iyo quality oo fursadaas ku qaban lahaa lama qofku waxa loo baahan yahay inuu wuxuu yaqaano oo aaminsan yahay oo qabto na oo ku fara adeego ilaa uu guulka gaaro oo plan leeyahay oo business plan leeyahay anigu hal baabuuran shaqadan ka bilaabay oo $16,000 jooga maanta in business kaanu $20 million business away actually it's almost $10 million a year if hadaan waa gada Iran $20-30 million oo ku fadhiya taas waxay ku timiday sabarkii iyo shaqadii badneed iyo ilaahay oo ii gargaaro aqligii siiyay mid kale aan maybe rag uga fiicanayn naagtan qaba naag wanaagsana oo aan hadaan ilaahay ku diidin ayaduna also opportunities so ayaduna shaqadeeda qabsatay anigana shaqadeeda ii dirtay hadaan ilaahay ku diidin maantadan aan ku sheegayo anigu 5 aroornimaan halkaan imaada habeenkiina waxa ka baxaa 9 habeenkiina 9 habeenimad ayaa shaqada dhamaysay 360 maalmood la soo dhaafay 9 maalmood aan afka ahay oo aan cimro aaday intii kala dhawaa shaqeynay marka waxa waaye if you want hadaad rabto inaad guulaysato waa inaad barnaamijna leedahay oo program aad leedahay
برنامجنا عاد حوق وشقيسو وهدان إلى يكون نين أصوات دان للساحة نين ما waxaa kaloo aan jeclay inaan ku weydiiyo isaaqo qofka dhalinyarada ee Soomaaliga ee ama wadankan ku cusub ama horeba u joogay ee doonaya inuu ganacsi galo nooc doonaba ha noqdee maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahayd koow waxaad fiirsaa waxaad qaban rabto koow maxaa rabtaa horta inaad qabato markaad waxaad qaban rabtay aad aragto wixii ayaga ahay balaan u sameeyay wixii ayaga ahay balaan u sameeyay diyaarna u noqo dhibaato fara badan inay ku soo hor istaagayso oo aad dhibaatooyin fara badan wax walba wanaagsan oo darbigay ka xageen darbiga inaad dardarto weey nidaarka ku gudba weyn jabiso jeebkaaduna inuu san noqon waayo jeeb aad u yar oo wax satisfy ka dhiga aysan jirin wax ku kaafiya ayna jirin waa inaad mar walba wax dheeraad doonto waan walba waa inaad wax dheeraad raadsato ilaahayna inaad ka baqdo weey aad xaqna ku socotid anu waligay wax ma xadin waligay qof ma dulmin dadkana waxa weeyaa hadda jidad baan ka dhisay Beledweyne aan ka caawiyay dad magaalada Beledweyne gudaheeda wadooyin baan ka dhisay way dadka masaakiinta aan caawiyaa zakada Beledweyne aan u diraaho waliba familkayga ma siiyo dadka baahan baan siiyaa dadkaas waa dadkan ka yimid wadankayga waa aadayna ugu weyn yihiin aniga waxaan qoyaas inaan insha Allah taala aan retire u noqdo laakiin intii ka horeysa intaan caawin karo caawiyaa haddaan ku weydiiyo Soomaaliya goorma kugu dambeysay Soomaaliya waxay ugu dambeysay Soomaaliyadan ka imid anigu aan ku dhashay oo gobolada dhaxaaheed waxay ugu dambeysay 88 kuma laaban laakiin waxaan tagay Hargeysa way Hargeysa anu Soomaaliya anu aqaana laakiin Soomaaliya la yiraahdo dadkii waxa baabiyay dadka Soomaalida waa walaalo aniga hadda Cabdisalaam oo qabiilada tahay ma aqaan Soomaaliya ma adneelaa dadka Soomaalida ama ogaadeenaya ka yimaado ama waqooyi ka yimaado ama Djibouti ka yimaado ama Liboy Kenya ka yimaado ama Soomaaliya ka yimaado kullu way wada shaqeeyaan qabiil ay yihiin ma aqaan Soomaalinimo mooyaan qofku hadduu Soomaali yahay Soomaalinimadu wax aad qaali ah oo waxa weeye oo qofku u dhasho weeye wax la iska noqon karo ma gabaran dhalo tenniska ciyaarta jirta waatay oo high school ku ciyaarta maalin la kaftamay waxa yiri Soomaali ma ciyaartada Soomaaliya ma ciyaartada markaas ay tiri Soomaali ma hiyo Soomaali kuma dhalana say yeelanay tiri Soomaali inaad noqoto marftahay ha itagi 5 daqiiqo ku qaadanaysaa inaan Soomaali waatay waxaad samaysaa inta Soomaali tagto factor saayir هاي أنا وحنا هاي أداني لاي كوديدن هبلا ليرة هبلا ليرة حوالنا هاي علم الحيوان هاي دهاني هاي تاسع 60 سنة بدأ هذا قبض مركز قبيلة وأنا قفك إنه 60 سنة كنا قصة Soomaaliya هذا كرة حلقة شيء يعني صدام حسين ليرة لما أنتوا كان عسكري وحيرة إن كان ويهود هالدل وحيرة أول عراق وبعد يهود مركز هو عراقي مركز دمو يهود النقطة هاي قفك وأنا Soomaaliya نبدأ إلى عليا كو وصومالي نقطة كبعد وقبيلكم رب نقطة قبيلكم عامة ولا حفالة ولا كفتما مر فلت وجعلها بينهم قفك قبيل كيس يا قبيل كي قالوا اسكو شاغنو عيب ما لكن انا اسكو انا ما ماشي هو غوريغا انت كنهي انيغا غعنتيدا كبس ها كيده يهد wax walba aniga engineer ka aha ana design gray waxaan u dhisay islaanta aan qabo meel asturan oo ay exercise ku sameyn karto oo xaraha weyn oo ay maaragtay daanaya ku carruurtana ku qorsato so wax walba ana dhisay marka waa magaalada koonaheedii Soomaa magaalada sabarkeeda waay have a good school system so ilma carruurta iskuulkoodana waa iskuul fiican ay ka dhigteen hadaan ilaa ku diin magaaladiina waa u dhowdahay airportkina waa u dhowdahay sabarna waa tahay so intaas oo dhan isku raacday ay guday inagu ina soo dhaweynayaa baan maleeyahay guriga ilaaliya waa gaar joog way هاي islaanteedu waxa ka jeceshaa lama arko barkee habeenkii marka ay lugeynayso oo exercise ka sameynayso wax walba ku ilaaliya saasoo doo socdaa hadda maanta hadu uu furaa Soomaa marka wax soo gali kar lama arko guriga calankii Soomaaliya marka halkan iga muuqda gurigana waa ku suran yahay gurigana waa ii suran yahay calankaas calanka Soomaaliya waa kan waa teamka aan support gareeyo si haga la yiraahdo football team waa American football team kana waa calanka Mareykanka calanku anaga meel kasta uu suran yahay ninna calankii ku kor ooyaaho meel walba surtay ninna uu hadaan ilaahay ku duu jaxjaxa
oo dhibaato u geysta marka waxa waaye haddaan ilaahay ku diidin laba kala baraysa kala war la yiri laakiin هاي ayagana ilaahay waxaan ka codsanaynaa inay ay fahmaan nation iyo caalan iyo dawlad iyo dhul inuu wax aan la gada karin oo lacag waa la shaqaysan karaa wax walba waa la heli karaa laakiin labada aan la heli karin waa dal iyo dawlad iyo caafimaad marka gurigu dee wuxuu ku fadhiyaa space aad u wanaagsan gurigan 4 fiican buu ku fadhiyaa 4 acre waay ها anaa gacantayda ku dhis ها wax walba arkayso concrete kaas anaa gacantayda ku sameeyay waatay waxaan u gatay meeshan hadda traga hadaad arkayso ها meeshan trag waay ها uu ku wareegsan yahay halkii lagu ordayay ama lagu exercise waxaan gareynay u talagalay islaanta maaragtay haddaan ilaahay ku diidin maadaama ay qof muslima tahay ها inay meel aan maaragtay haddaan ilaahay ku diidin ay meel walba dhar meel iyada u gooniya meel walba dhar kuma dhigi karto inay halkaan maaragtay howleeda ku qabsato ma sha Allah ya aan ugu talagalay Cabdisalaanow baabuurkan waa baabuur aad qaali ugu ah هاي taariikhdiisa haddaan kaaga sheekeeyo baabuurkan waxaa wadi jiray asoo yellow cab ah waa baabuurkii ugu horreeyay Mareykanka iibsado dee Mareykankuna ay caan ku ahaayeen Mareykankuna ay caan ku ahaayeen ها baabuurkan waan yaraayoon taxi cab bilaabay baan taxi cab inaan u gatay inaan ka dhigto $900 ka baxshay $900 meer oo police auction ah oo bariga dee lacag badan ahay lacag badan ah هاي 27 sano leeyahay baabuurkan واو وانتيك مركا هاي xoolahan leeyahay oo dhan ku doorsama ها waa u sheegay naagta qaba waxaa yiri ها haddaad eri tagto wax dhan qaada tagto ها كانوا نيجا تك كان هاي قربنا إن مركا قرمت كحيسة كان waxaan ka haystaa kan aad u faraxsanahay wata oo baabuur aad qaali uga waa baabuurkii ugu horreeyay Mareykanka iibsado waa baabuurkan ilmaha marka dee taariikh buu ku leeyahay taariikh aad u weyn ugu leeyahay muddo intee lag baad ku shaqeynaysay taxi ahaan gaari hal sano ku shaqeeyay hal sano ka bacdi magaaladii ay diiday waxay yiraahdeen baabuurkaada duq weey baabuur kala iibso ها marka inaan gada iska dhaafay rinjigii baan ka bedelay waa sameeyay music baan ku xiray haddaan ilaahay ku diin taayiro fiican ku xiray halkaas uu yaalaa marka aan faraxsanahay aan wataa baabuurkan xoolahan leeyahay oo dhan hadii laga qaato asoo kuma jiro هاي isaga la isugu iman maayo hadii ilaahay yaraan waxaan isku dayay in tuuladii caalgaal ahayd oo ku dhashay inaan la tagi doono ما شاء الله ما شاء الله waxaan kaloo ku tusayaa ها meel kale oo inta oo haddaan ilaahay ku diidin meeshaan carruurtaan u dhisay waaga yaraayaan basketballka ها جيم كان anaga aad isugu fiicana ya waa ii sheegtay ها xaggaasay fariistaan anagii wiilasha marmarka qaar ku tartana ها meel exercise oo fiican weeyo basketball waa arkaysaa waxa ku taala Pacers waa teamka Indiana iyo Hoosier was Indiana University okay yeah tiimo wanaagsan baa gobolkan leeyahay basketballka Soomaaliya gobolkan waa movie Hoosier gobolka lagu dhigay weeyo basketballka caan ku yihiin okay yeah ها warehouse and distillery familka iskale islaantaan qabo markay rabtay inay ooliyada bedelato iyo waxaas halkaan aan ugu bedelaa eygii aniga joogna eyga islaanta uma ogolo guriga halkaan uu degan yahay eygu wuxuu leeyahay heating and cooling uu leeyahay marna qabow ma helo kuleylna ma helo halkaan fadhi baa kugu yaala halkaan anigii eyga ku sheekaysana haddaad akhriso waxaa ku qoran Isaac's Man Cave anigii eyga leeydi kuma yimaado looguma yimaado halkan gaariga noocma gaarigan hadda way soo galay gaarigan waa gaari xarago oo sportiya oo la yiraahdo oo ka muuqata oo Corvette la yiraahdo okay it's $150,000 car $150,000 it's a convertible the top kaas oo dhan waa ka soo baxaya he have about 620 horsepower wow he can go 1 to 60 in a matter of second it's my new toy ما شاء الله kii hore waxaad ii sheegtay inaad ka haysato markaad aad u faraxsan tahay ee ana ka qasnay kana goormad ka haysato markan xaragona islaanta qaba meeshaan exercise ku samaysaa anigii wiilashu waa gymkii waa dhar badanahay oo islaantu aniga ayadu wax ku dagaalanay meeshii dharka la gashanay marka I built my own closet okay so if you look at wow de waxa bal moodaa dukaamadii dharka lagu iibin jiray
Yeah. lama moodo meel Yeah. I have qof dharka 500. dhigto Shambokolo tie, my sunglasses, my watch is here. I mean, it's not a little organized. All my. laakiin magaaladii aad ka timo dhamaysaaqo Yeah, waa qaadan kartaa. waa arra tiri lahayd alaabtani Waa tiri kartaa. adiga xaaskaaga iyo adiga saaxiibada ay sii tuuriyo xaas ma jiraan No, ma jiraan waxaas. wow gaarigani dee waa kuwii filimada uun aan ku arki jiray ya Wala, saabsa. waa adiga iyo xaaskaaga Aniga iyo xaaska iyo marka isii tuuriyo xaas ma jiraan xaas isaaqo ma jiraan meel kale qof raaca ma. Qof meel kale raaca ma laha. So the sababta aan ku tusaa waxaan oo dhan. ha ha ninkaygii reer baadiyaha iyo baadiye ka yimid tuulada ka yimid haddii aan intaan xilligan kooban oo noloshaan aad Maraykanka u wada sarraysa aan ka sameeyo qof walba waa ka samayn karaa